waxaan halkan mar labaad uga mahadnaqayaa marka koobaad ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirka qorshaynta qaranka Soomaaliland qabyo tire oo u dhashay gobolka Hawd kana hirgeliyay mashaariic badan oo dawli ah maantana ku quudinaya degmooyinka gobolka Hawd hoos yimaada ay ka mid tahay degmada Bilgubadland xogayaa ka ahay quudinta dadka masaakiinta ee ku tabaaloobay abaaraha waxaan leeyahay wasiir boqolkiiba waa sidii lagaaga bartay in aad qabato wax qabad badan oo aad ku suntan tahay taariikhda Soomaaliland kugu jirta sidoo kale waxa ka mid ah degmada Bilgubadle degmada Gumbura degmada Sayliya degmada Balacbane waxay dheer tuulada Gumareed oo hoos timaada degmadayda intaasba wuxuu ka fuliyay raashin isugu jira sonkor bariis daqiiq saliid iyo caano aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa sidoo kale waxaan kugu hambalyeynaa sida fiican aad labada agaasimo waaxeed aad u magacowday uguna ballaarisay wasaaradda qorshaynta qaranka waayo wasiiradii hore may arki jirin dhulka istulfuulka ah ee shakhsiga qori ka shaqeeyo laakiin aad waxaad nasiib u heshay inaad dad badan oo bilaa shaqo oo jobless ah aad ku soo kordhisid wasaaraddaada oo aad istulbuuxii meesha ka saarto qofka qori ka shaqeynayay waan kuugu mahadnaqaynaa sidoo kale waan kula shaqeynaa wasiir sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka biyaha boos oo tiraba 3 riig dhagax dhigay wasiir riigii koobaad wuxuu ahaa riigga ay xukuumaddu ka hirgelinaysay gobolka Hawd oo aynu u astaynay meelaan ka fogeyn degmada Bilgubadle oo xagga banka raacsan ma hirgelin inuu kaasu qabsoomo waxa kii labaad ahaa inuu dhagax dhigno oo imaka biyihiisii la wado la kabyadii carrada ee sare laga soo saaray dhulka oo dhagaxii hoose loo galay oo birtii koobaad ay ka jabtay birtaasna u taagan riigii labaad ee alkhayr ay lahayd alkhayr waanu mahadinayaa cid kastoo ka shaqaysayba riigaasuna wali uu taagan yahay in laga shaqeeyana aad iyo aad baan u jecel lahay maamulka degma ahaan riigii saddexaad ka hirgelisay gobolka Hawd wuxuu ahaa riigad ka hirgelisay degmada ee tuulada Gumar ee degmada Bilgubadle aan xogeeyo waxay hoos timaada shalay baynu dhagax dhignay alhuda alislaamiya ayaa mashruuca soo qaadatay cid kastoo ka shaqaysay baan u mahadcelinayaa waxaan aad u jecelahay in ilaahay midun inooga soo saaro biyo degdeg ah inta ka horeysa doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu insha Allah ay ku tartamayaan 3 xisbi xisbi ahaan aanu waxaan ku yiri soo dhaweynayno Mujaahid Muuse Buuxi Cabdi oo kulmiye gudoomiyaha kulmiye ah waxaan leenahay wasiirada kale ee gobolka oo si fiican uga shaqeeya gobolka in sida labada wasiir ay bal mariyo 2-3 ba ay soo milicsadaan mashaariicda ballaaran ay ka qabanayaan sidoo kale wasiirka diinta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo had iyo jeer horumarka gobolka ka shaqeeya oo aad mahadsantiin 100%.